السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu gudageli doonaa qaybteennii lixaad ee taxanaha maalmihii qaraadhaa ee xabsiga Guantanamo Bay oo ah xusuus qorka Xuseen Cabdilqaadir oo ahaa maxbuus Falastiini ah oo haysta dhalashada waddanka Urdun oo muddo ku xidhnaa xabsigii Guantanamo Bay iyo jidkii xanuunka badnaa ee weliba xabsigaasi uu u soo maray iyo markii dambe dhibaatada uu ka mutay. ku soo dhawaada saaxiibayaal qaybteennii lixaad ee maanta. qisada maxbuuska Xuseen Cabdilqaadir qaybteedii shanaad waxa inoo mareysay markii loo gudbiyey xabsiga Bagram iyo xaaladii ugu horeysay ee uu kula kulmay. qaybteena lixaadna waxa uu inoogu bilaabayaa sidan. waxaabad moodaa buu yidhi goobtan laygu soo xireeyey xiro qaxooti oo halkii taandho laga dhisi lahaa laga yeelay qolal silig ku wada xidhan yahay. waxaanan u maleeyey in ay ugu yaraan ku jiraan ilaa 20 qof oo aan ka mid ahay, mid walbana sidan oo kale meel yar oo edeg ah lagu xidhay. waxa ay aniga igeliyeen qaybta koobaad oo ah xerada yar ee ay ku dhex yaalaan in ka badan 20 edeg oo sidan oo kale ah oo dhammaantood uu kala qaybiyo silig masaabiir leh. waxa ay ahayd subaxnimo Jimco ah bishii 7 sanadkii 2002. goobahan edega ah waxa meel bartankooda ah ku yaala goob loo dhisay ilaalada xabsiga oo ciidamada loogu talagalay oo ah goob kor u dhisan oo dallaalimo ama hadh leh sida koofiyadda oo kale oo ilays khashaafada ahi dhinac hoose kaga soo yaalo oo 4 jiho kala iftiiminaya. waxa ay ahaayeen khashaafado koronto oo aad u awood badan oo leyd badani ka soo baxayo. waxa sidoo kale ku yaala dhismo dabaq ah oo ay saaran yihiin ciidamo badan oo ilaalo ahi. dhammaan qoryaha ay sitaan ciidamada Mareykanku iyo kuwa gidaarada dabaqa ay saaran yihiin ka soo jeeda xagga maxaabiista ayay u soo wada jihaysan yihiin oo loo soo jeediyey. maxbuus kasta oo ku xidhan qol yar oo shabag ah waxa ku soo jihaysan ama ku soo jeeda qoryo lagu soo jeediyey dhinaciisa si loo ilaaliyo maxbuuska. waxaad ku khasban tahay in aanad isdhaqaajin, haddii kale rasaastu waa ay kugu taallaa. ciidamada kale ee nagu hareeraysan ee xeradan yar gaafureegaya waxa ay wada sitaan hub qoryo iyo baastoolado ah. waxa ay laabta, bawdyaha iyo gacmaha ku sitaan baastoolado iyo qoryo yaroo gaagaaban oo boobayaal ah. xataa kuwa cunnada iyo biyaha noo keenaya waxa ay wada sitaan hubkaasi. waxaanan garowsaday in meeshani tahay saldhigga Bagram ee ay Mareykanku ku leeyihiin dalka Afghanistan dhexdiisa. cunto qaadashadu waxa ay ahayd 3 waqti oo kala ah: quraacda oo lagu siinayo marka sidaa looga soo baxo salaada subax, wakhtiga qadada oo ah marka ay saacadu tahay 11 duhurnimo, iyo wakhtiga casho qaadashada oo ay ka dhigeen marka ay saacadu tahay 4 galabnimo. weligaa ma maqashay casho la qaadanayo 4 galabnimo? wax la yaab leh sida ay u kala fogeeyeen cashada iyo quraacda. waxaa laga yaabaa in aad si weyn ula yaabto cashada la cunayo wakhtigaasi galabnimo oo ah wax yar uun kadib salaada casar. haddii aan eegno cuntada ay saldhiggan Bagram kugu siinayaan wax weeye dhammaanteed cunto moor ah oo la warshadeeyey. inkasta oo ay aad u yar tahay haddana taya ahaan ma xuma oo waa wax uun la cuni karo. waa cunto isku eg oo aan lahayn noocyo kala duwan. waxaa lagu diyaariyey weel balastig ah, waxaanay noocyadeedu isugu jireen makarone ama baasta yaryar, bariis yar oo cad, lugo digaag oo aad u yaryar, iyo maalmaha qaar hilib yar oo lo'aad oo aad u kooban, halka ay wakhtiyada qaar ka tahay faasuuliye ama misir, gaar ahaan faasuuliyaha loo yaqaano faasuuliyaha noociisa madow. quraacdu waxa ay maalmaha qaar ahayd buushi yar oo buskud ah oo ah nooca loo yaqaano sunflax oo ah buushiheed ka samaysan. maalmaha qaar waxaa lagu siinayey in yar oo sabiib ah oo baakad ku jirta. dhinaca canjeerada ama laxooxda waxaa lagu siinayaa 2 wiigba hal mar dhowr xabbo oo canjeero ah. xagga khudradda haba yaraatee ma arkaysid wax khudrad ah marka laga yimaad dhowrkii biloodba in yar mooyaane. marka uu qofku qaato cashada ee uu cunno 4 galabnimo waxaa loo ogolaa in uu cadaydo oo waxa ayna siiyeen burushka cadayga iyo daawadiisa, taasi oo qofka maxbuuska ah keliya loo ogol yahay 24 saacba hal mar oo ah habeenkii salaada cishaa kadib. wixii intaa ka dambeeya laguma ogola in aad cadayato goorta ay doonto ha ahaatee. nin waardiye ah ayaa ku keenaya burush iyo daawo yar oo la isticmaalayo. nambarka maxbuuska lagu diiwaangeliyey kadib marka aad dhammaysatana isaga ayaa kaa qaadaya oo kaagama tegayo. mar kalena haba yaraatee laguma ogola in aad cadayato 24 saac. cid kale kulama isticmaali karto agabkaasi yar oo nambarkaaga ayaa ku yaala. biyaha waxaana loo ogolaa qofkiiba 3 ilaa 4 litir oo 24 saacaba lagu ogol yahay. waxaana 4 litir laguu siinayaa isticmaalka in aad cabto iyo in aad ku weyse iyo dahaaro qaadato. dhinaca maydhiga jidhka maadaama aanay kugu fillayn, waxa keliya lagu ogol yahay in aad maydhato wiigii hal mar oo keli ah oo weliba wakhti laguu qabanayo, taasi oo ah 5 daqiiqadood oo keli ah
inaad ku soo maydhato. haddii adiga oo aan weli si fiican u maydhan ay 5 daqiiqadood kaa dhammaato, degdeg ayaa lagugu soo jebinayaa goobta loogu talagalay maydhiga. garbaha inta lagu qabto ayaa lagugu celinayaa qolkii yaraa ee edagaha ee shabagga iyo masaabiirta ka samaysnaa. marka aad 5 daqiiqo dhammaysato, waa lagugu soo garaacayaa oo waa lagaa soo saarayaa goobta maydhiga. biyaha maydhiga lagu dhigayaa kuguma filna oo waa wax aad u kooban, mana aha kuwa nadaafadoodu wacan tahay. waxa aad suuliga tegaysaa adiga oo silsilada gacmaha iyo lugahaba kaaga xidhan yihiin oo labada indhoodna lagaa daboolay, iyo weliba 22 qofba in hal mar loo sii daynayo maydhiga iyaga oo xadhig isugu wada xidhan yahay. marka aad gaadho goobta qubayska ama maydhiga, waxa keliya oo lagaa furayaa waa indhaxidhka. goobaha maydhiga iyo xaaja gudashada loogu talagalay waa kuwa gaagaaban oo qofka dhexda ugu jooga marka uu isdhex taago, oo weliba 3 jiho oo keli ah ka xidhan, balse jihada afraad ay bannaan tahay. adiga oo qaawan oo maydhanaya ayaad arkaysaa askartii Maraykanka oo halkan jihada bannaan isa soo taagaya oo ku daawanaya, iyaga oo kaa maadsanaya. waxa ay ku qusquslayaan cawradaada. xataa askartan sidaan idiin soo sheegay waxaa ku jira kuwa gabdha ah oo intay ku soo hor joogsadaan ku daawanaya adiga oo qaawan. taasi aad ay noo dhibisay. haddii aan ka hadlo dhinaca baadhitaanka, maxbuuska ku jira saldhigga xabsiga ee Bagram waxa uu saacad walba u diyaarsan yahay baadhitaan culus oo lagu sameeyo. waa baadhitaan dareen badan leh oo si arxan daran lagu baadhayo. habeen iyo maalinba wakhti kasta waa lagu baadhayaa. weliba waxa lagu baadhayaa si aan naxariis lahayn oo laga yaqiiqsoodo. mana awoodaysid in aad wax samayso oo waxa goobtaasi nagu qabsaday cabsi iyo argagaxgelin badan oo aad u culus. dareenkayagana si weyn u taabatay. in badan oo naga mid ahi cabsi darteed waxna may cuni kari jirin, waxna ma ay cabbi kari jirin. sidoo kalena hurdo lama seexan jirin cabsi darteed. marka uu qofka waardiyaha ahi yidhaahdo waa la isbaadhayaa, dhammaan maxaabiista edegyada ku jirta oo dhammi waa ay istaagayaan, waxaanay isugu imanayaan goob koone ah oo ka mid ah xerada. waxaana mamnuuc ah in wax dhaqdhaqaaq ah la sameeyo. sidoo kalena waxaa mamnuuc ah in hareeraha la eego ama la istaymoodo oo la wada hadlo. gacmaha waxaa dul saaraysaa madaxa. waxaa kadib soo gelaya xerada ciidamo badan, halka kuwo kale oo badani hareeraha xerada oo dibadda ah ay istubayaan iyaga oo ilaalo ah oo aad u diyaarsaday hubkii ay siteen. waxaa kadib askari ka mid ah askarta uu amar ku bixinayaa in kooxda wax baadhaysa hawshooda bilaabaan, iyada oo kooxda kalena hubkooda diyaarsanayaan. waxa ay kuu baadhayaan si walba oo ay doonaan. waxaanad ogaataa in baadhitaanku yahay jidhkaaga oo xataa qaawan. xubin kasta oo jidhkaaga ka mid ah sida ay doonaan ayay u baadhayaan oo kuugu dheeldheelayaan. haddii aan wax idinka sheego xaaladda suuliga aannu isticmaali jirnay muddadii aannu xeradaasi xabsiga Bagram ku jirnay, waxa uu ahaa oo qofku ku fadhiisan jiray foosto la kala gooyey oo la dhigay goob bannaan oo aan asturnayn. foostadan haafka ah waxa la dhigay xero kasta ama idig kasta oo xerada ka mid ah oo ay qayb maxaabiis ahi ku wada jiraan si ay u wadaagaan. dhinacyada oo dhan waa ay ka bannaanayd marka laga tago hal jiho oo keli ah oo ah jihada ay taallo ee gidaarka ah, maadaama goob koone ah oo xerada dhexdeeda ah la dhigay. balse maxaabiistu marka ay isticmaalayaan waxa ay sutro ama asturnaan ka dhigan jireen saraawiishooda oo ay intaa ku beegan cawrada iska saari jireen marka ay ku xaajo gudanayaan, iyaga oo qaarkooda sare qaawan yahay. waxaana ku ag taagan oo meel kuu dhow kaa waardiyeynaya hadba askarta ku qoran wakhtigaasi gaadhka ama ilaalada, rag iyo dumar kuwa ay doonaan ha ahaadaane. haddii inta aad surwaalka iska saarto aad qaarkaaga sare dul dhigto, waa ay kugu qaylinayaan. waxa ay ku odhanayaan muuqaalkaagu ha muuqdo ee ha isqarin si aan ku arko. markii aan muddo 3 toddobaad ah ku jirnay xabsiga Bagram, waxa ay dhammaan maxaabiistii ka xiireen madaxa oo ay timihii u wada dhukureen. timaha, garhka iyo shaarubaha ayay dhammaan mishiinaga wada geliyeen oo qofna laguma reebin tin tima ah. qaar naga mid ah oo maxaabiista ahaa aad bay u diideen in garhka laga xiiro. waxaanay codsadeen oo keli ah in timaha madaxa loo dhukuro balse garhka loo daayo. laakiin cidinama dhegaysan oo waana laga wada xiiray dhammaan gadh iyo madaxba. muddadii aan joognay xabsigaasi ee aannu ku xidhnayn muddo 2 jeer ah ayay sidani dhacday oo ay dhammaan maxaabiista ka wada xiireen. qaar ka mid ah maxaabiista aad ayay tani u saamaysay oo waxa ay doonayeen qaarkood inay garhka daystaan, balse cidina uma joojin. waxaaba dhacday maalmahaasi in qaar ka mid a maxaabiistu si ay cabashadooda ugu muujiyaan sida ay u diidan yihiin arrinkaasi inay cuntada ka soomeen. waxaan xasuustaa sidoo kale maalmahaasi dhibaato qabsatay mid ka mid ah maxaabiista xabsiga nagula jiray. waxa ay dhacday qisadani iyada oo askarigii timaha naga xiirayey meel halkaasi ah kursi ku fadhiyo oo uu gacanta ku haysto qalabkii uu timaha iyo garhka nagaga xiirayey in mid mid
loogu tegayey. kadib mid ka mida maxaabiista ayaa iyada oo ninkii askariga ahaa ee timaha naga xiirayey uu timaha u xiirayo iska dhuftay oo u cawday, isaga oo sheegay in qalabkan uu timaha kaga xiirayaa ay qabsanayaan jidhkiisa oo aad u xanuuninayaan oo uu dhibayo, sidaasi darteed uu madaxa uun ka dhukuro balse aanu garhka ka xiirin ee uu daayo. askarigii noo xiirayey ma uu dhegaysan cabashadii maxbuuska, sidii ayaanu shaqadiisa isaga watay. wakhti haddaba ninkii maxbuuska ahaa garhka qalabkii lagaga xiirayey lagaga hayo ayuu maxbuuskii iska tuuray inta uu qalabkii gacantiisa ku qabsaday. askarigii ayaa aad u cadhooday. kadib ninkii maxbuuska ahaa ayuu xuurto ku qabtay, isaga oo silsiladii ku xuurteeyey oo qoorta kaga duubay ilaa uu maxbuuskii dhulka ku dhacay isaga oo koomo ku jira. qaar kale oo ka mid ah askarta ayaa wakhtigaasi ka caawiyey inuu maxbuuska dhibaateeyo, iyagoo isugu tegey. sidaasi ayaanay u garaaceen oo dhulka ugu tuureen maxbuuskii qalabka xiirrimaadka ka cabanayey oo ay kaga guulaysteen. guushuna ku raacday askartii waardiyaha xabsiga ka ahayd. markii ay dhulka ugu tuureen maxbuuskii xiirrimaadka diiday waa ay iska tegeen. muddo markii uu jiifayna annaga ayaa ugu tagnay goobtii isaga oo dhiiggu afka iyo sanka ka da'ayo. waxaanan weydiinnay, war maxaa kugu dhacay? ma waxa aad doonaysaa in aad amarkooda diiddo askartan arxanka daran ee ina waardiyeynaysa? siday ku dhici kartaa innaga oo aan awood lahayn inaad amarkooda diiddo? bal maxaad dhibaatadan oo dhan isugu keentay? dhibaatadani adiga oo keliya kugu koobnaan mayso ee dhammaantood sidan ayay noo garaaci doonaan oo ay qoorta silsilad inagaga wada xidhi doonaan. waxa uu noogu jawaabay, maya, maan diidin amarkooda, balse waxa i dhibaysay qalabkii ay garhka iyo madaxa inagaga xiirayeen. gaar ahaan markii ay garhka marayeen ayuu qalabkaasi i qabsaday oo aad uu ii xanuuniyey. gacanta ayaan qabtay ninkii askariga ahaa aniga oo aan u jeedin inaan xoog isaga furfuro. waxaanan ku idhi, waar iga jooji, aad bay ii xanuujinaysaa waxan aad iigu xiiraysaaye. waxa uu u maleeyey in aan diidanahay in aan qaato amarkooda oo ah xiirrimaadka garhka iyo madaxa. waxa aan u sheegay in ay annaga ka muslimiin ahaan aad noogu adag tahay inaan garhka iska xiirno. maxaa yeelay baan ku idhi, diintayada islaamku waxa ay weynaysay meeqaamka garhka oo xukun ayaa nooga yaalla. sidaa darteed aad bay iigu adag tahay in aad garhka iga xiirtaan marka laga yimaad in uu mashiinku i qabsanayo. waxa aan ku idhi, maxaabiista qaar weligood garhkooda may xiirin, anna way igu adag tahay ee madaxa uun iga dhukur oo garhka ii daa. sidaasi ayaan ku idhi, balse iima dhegaysan. xaqiiqa ahaan si xun buu iila dhaqmay, aadna way ii dhibaateeyeen. shakhsi ahaanna aniga xiirrimaadka garhku waxa uu ii ahaa mid dhibaato igu ah, sababta oo ah weligay muddo 29 sannadood ah garhkayga makiinad iyo mishiintoona ma marin. waxaase laga yaabaa ka Ameerikaanka ahaa iyaga in aanay macno la lahayn xiirrimaadkani, anigana aad buu iigu weynaa. xuseen cabdilqaadir oo inooga warramaya sidau ninkaasi maxbuuska ahaa u canaantay waxa uu yidhi, xaqiiqa ahaan aad baan u canaantay ninkaasi. waxaanan ku idhi, adiga ayaa isdili gaadhay maadaama oo aad amarkoodii ka hor timid. dhammaantayo maxaabiistayadii kale waxa aannu istusnay khatarta aannu ku sugannahay iyo sida ay halis ugu jiraan nafahayagu, maadaama askar aan naxariis lahayn oo weliba cuqdad weyn islaamka u hayaa ay nagu hareeraysan yihiin oo aannu shabagga ugu jirno sidii bisad uu shabagga ugu dhacay jiir oo kale. ninkii maxbuuska ahaa waxba ilaahay kuma yeelin gacantii ay u qaadeen oo wax nabarra ah oo waaweyn kagamay tegin jugihii waaweynaa ee ay soo gaadhsiiyeen, marka laga yimaado dhaawacyo yaryar oo afka iyo sanka ka muuqday. maalintaasi waxay ahayd maalintii koowaad ee dhammaantayo timaha iyo garhkana laga xiiro, waxaana xigtay maalin kale muddo kadib xiirrimaadkaasi hore. xabsigu waxa uu ahaa mid aad u dhibaato badan. cuntada aan ka soo hadlay, hurdada, nadaafad qaadashada iyo dhammaan baahiyaha asaasiga ah ee maxbuusku u baahan yahay waxay ahaayeen kuwo aad u adag. doorasho kale ma aanu lahayn oo aan ka ahayn in aan ku sabirno waxa xabsiga nagu qabsaday. waxaanan in badan isweydiinnay xaalkayagu halka uu ku dambayn doono. in badan maxaabiistu waxa ay ahaayeen kuwo nafli caari ah oo nolosha ka quustay, maadaama qaabka naloo qabtay iyo sida naloo hayey iyo goobaha nala geeyey aad u halis badnaayeen. welina aanaan garanayn halka aannu ku dambayn doonno. waxa ay nala ahayd uun in aannu ducaysanno oo nolosha ka quusanno. waxaan xaqiiqa ahaan u arkayey in nolol dambe oo noo hadhay aanay jirin. qoysaskiina laga soo kaxeeyey hadalkooda daa, cid aannu ka waraysan karnaa ma jirto. markii aan ku xidhnaa xabsigii Bishaawar in uun rajo ayaan qabay, laakiin iminka xaaladdu waa ay sii xumaatay. bal hadda qabsoo, welina ma ogi in meel kale naloo sii wado. xuseen cabdilqaadir oo xusuus qorkiisa maalmihii qadhaadhaa ee xabsiga Guantanamo Bay inoo sii faahfaahinaya waxa uu yidhi,
aan dib idiin yara celiyo markii aannu xabsiga Bagram ku jirnay muddo 5 maalmood ah habeenkii 6aad mar ay saacaddu ku beegnayd 10kii habeenimo waxaa dhawaaqay askarigii waardiyaha ahaa isagoo oo ku dhawaaqayay nambarkayga 171 maadaama aanu jirin magac la isugu yeedhayaa oo qof walba nambarkiisa ay tahay in uu qaybo oo si wanaagsan u bartaa maadaama la isugu yeedhayo waxa aan noqday mid argagaxsan waanan istaagay anoo naxsan maadaama ay ahayd markii koowaad ee la ii baaqo la iiguna yeedho xaqiiqi raadin gaar ah bal ka fikir adigoo xabsigii ku jira oo goor habeenimo ah uun mar keliya lagu dhawaaqo nambarkaagii maxbuusnimo waxa maskaxdaada ku soo dhacaya talow miyay ku dilayaan talow miyay ku jirdilayaan talow ma nafta ay kaa qaadayaan talow ma baaritaano kale ay ku samaynayaan dhammaantood waa su'aalo aan isweydiinayay waxa aan u hinqaday in aan degdeg ugu jawaabo yeedhmadii nambarkayga waxaanan isa soo taagay daaqadda shabagii yaraa ee aan ku xidhnaa askarigii ayaa albaabkii igu soo furay waxaanu madaxa igaga xidhay kiish madow isaga oo silsilad kale gacmaha iyo lugaha igaga sii adkeeyey waxa uu ii hoggaamiyey meel xaggaasi ah isaga oo ifuushiyey goob dabaq ah oo xabsiga ka mid ahayd oo ay degganaayeen kooxaha waxbaadha ee sida gaarka ah maxaabiista xaaladooda u baadhaa ama ula socdaa waxa ay iigu fadhiisiiyeen kursi waxaanan gartay in aan dabaqa sare saaranahay kiishkii ay madaxa igaga duubeen ayay iga saareen daqiiqada markii aan aamusnaa ee aan meesha fadhiyey waxa ii yimid 2 nin oo aan labis ciidan wadan oo ku labisan dharka shacabka waa ay isku kay sheegeen waxay ii sheegeen in mid ka mid ah yahay baadhe halka midka kalena yahay turjumaan yaqaana luuqadda carabiga si yar jajaban ayuu ugu hadlayay luuqadda carabiga balse aan si wanaagsan u fahmayey ninkii baadhaha ahaa ayaa hadalka bilaabay isaga oo su'aal i weydiiyey waxaana hadalka ka daba qaatay ninkii labaad ee turjumaanka ahaa oo su'aashii ii macneeyey aniga oo garbaduub u fadhiya oo lugaha iyo gacmuhuba xidhan yihiin waxaan gartay ninkan af carabiga jajaban ku hadlayaa in aanu ahayn nin carab ah ee uu yahay Ameerikaan caddaan ah oo afka carabiga bartay ninkii turjumaanka ahaa waxa uu igeliyey dareen ah in aanu ninka wax baadhaya ahayn cadow aniga la ii soo diray ee uu yahay keliya nin baadhaya arrimo shaqadiisa ah sidoo kalena aanu garanayn haba yaraatee su'aalahan uu hortayda ku furay oo aanu hore u soo arag oo loo soo diyaariyey keliyana uu imika arkayo su'aalahaasi su'aashii koowaad waxa ay noqotay ma cabtaa khamriga waxaan ugu jawaabay weligayna khamri ma cabbin waxa ay su'aashii labaad noqotay oo ay weydiiyeen ma cuntaa hilibka doofaarka ama khansiirka waxaan ugu jawaabay maya ma cuno weligayna ma cunin hilib doofaar maxaa yeelay diintayda islaamku ma oggola in la cuno hilibka doofaarka arrimahan aad weydiisay diintayda xaniifka ah waa inaga reebtay oo nooma oggola ayaan ku idhi sidaas darteed waxaan weliba u sii raaciyey ma cabbin hore iyo dambayso toona mana cunin hilib doofaar intaa markii aan ugu jawaabay waxaan niyadda iska weydiiyey anoon afka ka hadal waxa iska khuseeya cunidda hilibka doofaarka cabbidda khamriga iyo waxa ay noo haystaan ee ay ku sheegeen argagixisada ama qaraxyadii loo geystay magaalooyinka New York iyo Washington dhammaanba akhyaarteedana la socotaay waxaa intaasi aan ku joojin doonaa qaybtii 6aad ee maanta aan ka soo qaadanay taxanaha maalmihii qadhaadhaa ee xabsiga Guantanamo Bay qaybta 7aad inta aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kasta oo aad ku sugan tihiin nabad iyo nolol wanaagsan